ومركي ugu horeysay oo racaynkan oo ka guud ahaanba Soomaaliland lagaga dhawaaqo qaar kamid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal oo iyagoo MMTV halkan kula hadlay ayaa ku dhawaaqay urur ugu magac dareen ururka dhalinyarada ictiraaf raadinta Soomaaliland iyagoona ugu baaqay guud ahaanba dhalinyarada ku dhaqan gobolada kala duwan ee Soomaaliland inay ku soo biiri karaan ururkani isla markaasina xukuumadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay Muuse Biixi Cabdi baa qudiray waxaanay ka warbixinayaan ujeedada ku kaliftay inay ururkaasi aasaasaan salaamaya dhammaan bulshooyinka reer Soomaaliland dal iyo dibad meel ay joogaanba maanta waxa weeyaan waxaanu shaacinaynaa ururka dhalinyarada ictiraaf raadinta Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta tahay maalinkii koobaad ee shaacinteedii waxa weeyaan muddooyin badan baan soo wadnay bal inaanu waxuun ka qaban karno baahiyaha aasaasiga ee ka jira Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama aanu dhahay dhalintii gobolka Awdal oo ku suntaneyd inay ka shaqeeyaan mar walba ama wasa ay aasaasan horumarka Soomaaliland dhan walba ay ahaato haday yahay dawladnimadii haday yahay calankii haday yahay diskii iyo nabadgelyadiiba magaaladan Boorama markaad eegto kulli taariikh bay leedahay magacay ku suntadeena waa magaalada aqoonta bal waxa soo maadaama ay tahay magaaladii aqoonta maxaad ka dhalinyar ahaan ka qayb qaadan kartaan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladdiinaba dhalinyar akaademiya oo wax soo baratay baatiin isbedel maxay sameyn kartaan isbedelkii aan rogrognay waxa fikir noo soo baxay ah inaan wax ka qabanno ictiraafka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hore u wadi jireen aabayaasheen inaga waaweynaa madaxdii inaga horeysay meel fiican ay soo gaarsiiyeen haddaba maanta anagu waxaanu diyaar u nahay ka dhalinyar ahaan booskii dhalinyartu awlow maqnaa bal in ka dhalinyar ahaan maanta aanu dareesino dhalita Soomaaliland min Boorame ilaa ceergaaba dhalinta joogta inay ka qayb qaataan horumarka Soomaaliland anigoo aasaasihiya oo markii aanu soo bandhigay ugu horeysan fikirka soo bandhigay ay la qaateen si wanaagsan iyagoo diyaar u ahaa horumarka meel magaranayay cid ay u tilmaamto un lahaa ma jihaysa markaan soo bandhigay fikir wanaagsan bay magaranayay u arkeen wayna la qaateen dhammaan waan salaamaya bulshooyinta reer Boorama iyo dhalinyartii filinkan la qaaday dadaal badan soo muujisay kulli shirkeen jaraad wuxuu daaran yihiin sida walaalkii ka dhawaajiyay Salibaan ictiraaf raadinta dhalinyarta gobolka Awdal ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan halkan ka dhawaaqnaa soo hore u sheegay walaalkay taas kulli dad wax isweydiinayaan sidee u raadinayaan dhalinyartu ama taqaana qaab nooceeya loo raadin karaa iyadoo ognahay dad naga waaweyn ama akaademi ama professor ama aqoonyahana ama madax la siyaasiyiin leh ay ku hawlan yihiin ictiraafka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhalinyartuna doorkeeda inay qaadato ayaanu jeclaysanay kulli waynu ognahay oo ictiraafka Jamhuuriyadda Soomaaliland marka dadku su'aalo badan isweydiiyaan anagu ka dhalinyar ahaan cid kasti oo aanu la kulmi karno oo mataqaana ictiraafkaasi hawshiisa kala hadli karno iyagoo isku taaga Jamhuuriyadda Soomaaliland inay muqaddas tahay ayaan cid walba u sheegaynaa waxaanu cid kasti oo dal iyo dibadba joogan kuna dhaqan Jamhuuriyadda Soomaaliland dal iyo dibad meesha doonaan baa joogaane aanu u sheegaynaa in hawshaasi aan maanta bilownay barbalowga ah in nagala qayb qaataan barbalowgeena kulli xubno badan ayaan ku aasaasnay oo hadda kulli naga maqan laakiin waxaanu yar dul istaagaynaa wax weeyaan kan dhalinyar ahaan 30 sano ayaan maanta Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku cagacagaynaysaa ama ay ku dhowdahayba sidee ictiraaf u heli weynaa ayaan isweydiinay sidee maadaama 30 sano dadkii akaademiga ahayn wax bartay ee wadanka deganaa aqoonyahanada ahaa ictiraafkan la sheegayo mar walba la ictiraaf la raadinayaan su'aalihiis nagu bateen qaabkee maxay naga hortaagan muxuu caqabad leeyahay maxaa mataqaana inaga dhiman seen u raadinaa marka ka dhalinyar ahaan waxaanu isniri niyo doorkiinii inaad qaadataan oo meel kasta ictiraafka aad ka raadisaan baaq baan u dirayaa reer Awdal Boorama ahaan waxaan leeyahay calanka inagu aynu leenahay dhalinyarta kulli dhalinyar badan baa fikrad qaldan aaminsan fikrada waxaan rabaa inaan baaq u diro waxa weeyaan calanka inagu aynu leenahay waa calanka Soomaaliland keenu ku dhalanay aynu u dhaxnay aynu ku dhalanay aynu ku guursan doono aynu ku barbaarnay aynu hoos joognay laabtuna waa calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan inagu aasaasnay heestiisa iyo calankiisa inagu aynu lahayn taariikhda waxaan reeyay dib u xasuusinaya heestana inaga iska lahayn oo xasan sheekh muumin abwaankii baa noo sameeyay Allah yarxamu Allah naxariisto calankana inaga ayaa iska lahayn marka Soomaaliland cidba inaga ma laha
waxaan aaminsanahay anigu mar kastaba inaga hormuud u ahayn oo ummadda tilmaami jirnay oo oran jirnay marka aynu mataqaana wax qabad noqoto mar hormar noqotoba gobol awdal baa laga deyn jiray maanta waxaan leenahay maxaa xadaaradeennii dib u dhigay maxaa ilbaxnimadeennii dib u dhigay caqabadayna hortaagan maxay tahay inaga oo markaa horumarka intaa leeg lahayn maantana waa inaan inagu u horseednaa ictiraafka inaan raadino taasina waa ballan aanu qaadnay inaanu ictiraafka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta aanu bilownay aanu wadi doono gobolada dhan aan gaarsiin doono maadaama laga bartay horumarka anagu dib u dhac shaqo kuma lihin dhalinyarta kale fikrada qaldan aaminsanna waxaan leenahay war cid kasti oo gobolkan degan jamhuuriyadda Soomaaliland cidna kama laha yagaana aasaasay halkii dhidbada loogu taagayna jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka awdal bay ahayd marka maadaama aynu inagu iska lahayn waa inay inagu wax kasti oo horumarka ama mataqaana hormuud u noqon kara jamhuuriyadda Soomaaliland horumarkeega inaan ka shaqeyno maanta barbilow waa kow oo waxaanu bilownay inaan ictiraaf ka raadino berri toolana horumar kale oo ballaaran oo mataqaana si aanu duweynaha aan cid walba la kaashan lahayn wax kana awood saarayna in aan luqad translate ku sameyn doono oo cid kasto oo adduunka joogta ee caalamka joogo dhanba aan u turjumi doono si markaas baaqigaas uu gaaro annaga oo markaa waliba soo bandhigi doono marar kalena in boodad iyo mataqaana aan si fiican u cilaamin doono oo in oran doono sabab maxaan loo aqoonsan leeyahay 30 sano jirnaa marka caqabadaha wixii ka soo gudboonaada kadibna aanu ka jawaabi doono aad baan salaamaya saxafi cishqi oo ah saxafiga gobolka ugu cadcad MMTV aad baan u salaamaya waxaan baa qudariyaa dhammaan gobolada Soomaaliland inay nagu soo biiraan ururka aan maanta ka aasasnay gobolka awdal waan u furan yahay gacmo furan oo ku soo dhaweynaynaa cid kasti oo nagu soo biiraysa xaruntiisuna gobolka awdal ay tahay dhammaan gobolada kalena waa u furan yihiin waa nagu soo biiri doonaan waxa kaloo baaq u dirayaa halkan oo rabaa inaan kaga faa'iideysto fursadan MMTV ay siisay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi Xidiid ayaan baaq u dirayaa waxaan leeyahay baaqigaas inuu madaxweynaha gaadho ayaan jeclaan lahaa si madaxweynuhu markaasi uu dhalinyarta fikirkan lahayd uu dhiirigeliyo una garab istaago isagoo uu ka ognahay inuu mataqaana dhalinyarta aad u jecel yahay oo horumarkooda marba ku taageero aad baan idin salaamayaa suxufi cishqi MMTV magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal